heesaha u qaado iyo weliba sababta uu ku soo xusho heesaha jacaylka waynu geli doonaa heesaha kale laakiin aan su'aal kale ku weydiiyo inta badan suugaantaada waxay ka hadlayaan dhinaca haweenka haween baad ku soo qaadataa qalbigaad ku taalaa tii kale garashada haweydeynin caashaqaha guulguulin ereyadeedana ka mid ahayd heesa kale oo badan oo iyaguna inta badan haween ka hadlaya baa jira waxaanu bay ula kulmaan iyo horta waa sax waana su'aal wanaagsan dadkuna isweydiiyaan inta badan waxaa jirta inta badan waxaan ka turjumaa dad qaarkood dad ay dhibtay qaar anaa sameeyo oo ay iga yimaadeen wuxuu farbadin isku dhex jiraan laakiin sideedaba aniga ahaan lafool ahaan ayaana niyo jeclayn negativeka marka inta badan positiveka waa aadan uga helayo iyo heesaha jacaylka iyo inaan mataqaanaa xaggaas aan ka dabaasho badda marka waa wax dooqayga ahaa inta badan marka waa dooqa lafoolo weeyaan saan anugu jeclahay weeyaan way si kale haddaan su-aasha kugu dhigon ku weydiiyo magacyada haweenku kama maqna inta badan heesahaaga saa tilmaantay ayaanay aaminaay saasay u soconaysaa waa la wadayaa marka mas leedahay magacyadii waxbaa dhiman weli mise waa sii soconayaan magacyadu way dhiman waa aada u fara badan runtii sababta mararka qaarkood magaca xafladaha jooga meelaha qaarkood ama dumara meelaha xafladaha ku kulano kale qaar baa waxaa weli magacayga maan maqal heesi ku jirta miyay samayn kartaa hees noocaasa way imanaysaa kulley ku idhaahdaa maadaama markaas uu kulanay marka magacyada inta badan waxaa jirta hadda waxaa laga yaabaa hees noo soo socdo nasteexa la yidhaho kale nin saaxiibkay aroosanayo kale iska lahaa oo aan ugu talagalay waxaa sameeyey inaan saaxiibo nahay sidaas oo kaloo miiran ayaa horta heesaha badan inta badan u qaado waxa magacyada faraha badan inta badan la iiga maqlaa waxay tahay anigoo qof codkiisii ku hadlaya ayaan inta badan heesihii qaaday marka laakiin waxay ka wada hadlayaan ama ay ka socdaan dad kala duwan oo ninba uu u hadlayo dadkuu jeclaa marka isaga midba isaga matalaya dhinacna haddaynu si kale u dhignana mar hadday magacyadii bateen haweenkiina mid kastaaba iyadaa loo qaaday ha qaadato weeyaan mid walba iyadaa qaadato waxaa jirta oo kale for example hees anigu sameeya jira la deeq oo kale deeqa waa magac soomaaliyeed marka la fiiriyo magac ahaan laakiin marka anigu heeska sameynayo deeqa ulama jeedin magac ahaan ulama jeedin waxaan ula jeeda deeqa tii deeqdaya oo kale masan marka waa heesan tiraa deeqa waan ku jeclahay deeqa waan ku jeclahay marka laakiin automatic deeqoo dhanna way wada qaateen ujeedka anigu kalahaana un deequ ahaa dee gabadhii deeqday macnaha aduu dal dheer jira xaggan kaa dareema marka magacba mu ahayna wuxuu ahaa un ereygaas aad leedahay waada deeqda ereygaas maanta tii deeqday deeqay waa deeqa waxay ka mid ahayd beesaan aadka uga heli jiray oo dal dheer jiraan halkan kaa dareemaa deeqa waan ku jeclay ya hala marka taasina waxa weeye bal dhegeystayaasheen maqashiin doonaa mar haddaad soo carrabaabtayba isla markaana ay ka mid tahay heesaa aadka loo dhegeysto dhawaada iga ii tahay
jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecel dulqaadkii xishoodkaba oo wax lagu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dawgalay dabcigaaga waxaaniyo dulqaadkii xishoodkaba oo wax lagu deeqo daa'ibkii kuuba sharafkuugu dawgalay indhaha ku tiirsada deeqay aragtidaado adigu daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecel qalbiga ku tiirsada deeqay aragtidaado adigu daldheer jiran halkan ka dareema deeqa waan ku jecel waagaag heestaasi deeqa waan ku jecelahay haddayna maxamed halkaasi kaga soo gudubno hees kalaa jirta iyadana oo weliba dee yaanan qarinin be heesahan aadka u dhegeysta ka mid ah muddo horenaan dhegeysan jiray laakiin dhinac markaad ka eegto ka warramaysa waayaha laba qof kale joogaan iyo qofka kale halku taagan yahay kolley magaceeda iyo dee sababtay ku timaadaa nooga war badan oo og laakiin anuun baa la labaya oo caashaqu ilulaye sow jacaylku laabtiyo lubigaba kumaa dayin waayahaba halka umu dhaadhicinbo laabtaba miya jacaylku afku mu taagan yahay afku ka taagnaa heeskaas runtii waa hees aad u qiimo badan beesa ma waxuu ahaa waxaa sameeyey heeska horta ereyadiisa iska lahaa saaxiibkii oo aan xaggan ka salaamayo xasan daahir ismaaciil weer same oo aad garanayso dabcan hargeysaan ku ogaa ninka odagaa iska lahaa wuxuu ahaa hees dareen ka yimid dhabaha buu ahaa dabcan markii ugu horeysay aan hargeysay raggii aan bartay kumid ahaa waana fanaan aada u qiimo badan nin aada u wanaagsan aqoon-yahana ah maasha allah halkana waan ka salaamaya saaxiibkay heeskaas marka heesku hees noocaas u ahaa marka maadaama heesku uu yahay hees dareen cajiiba leh aad baan uga hela laftigeeda markuu ii akriyey waxaan ku iri markan laxanka u sameynaya xitaa laftigeeda muu daahinba waayo dareenku waa wax cajiiba dareenkaa keensaday laxankeeda xitaa marka wuxuu ahaa hees dad badanna ay isku daweeyaan runtii oo barnaamijka noocaas oo kale oo la soo kulmaamo oo oo kale marka wuxuu ahaa hees aada u wanaagsan aad iyo aad anuu baaba la liito anubaa la labayo caashaqu ilulaay soo jacaylku laabtiyo lubigaba kumaa dayin lubigabu kumaad hayn marka waxa wey macnaa ninkana dhab uu jecla laakiin inuu sheekay wadatii maala yacni iyo waqti dhamays ereyga ama beydka dambana dee anuu baaba la liito ladi waaye jiifka show aduu ladnaantabaad raaxada macnaha ladnaantaad raaxada ku wadataa aad iyo aad heestaana dhegaystayaashaynu wada maqli doonaa anbaa la labayo caashaqu ilulaay sow jacaylka laabtiyo lubigaba la labayo caashaqu ilulaay sow jacaylka laabtiyo lubigaba kumaadray
hootadu anunbu ilooje shudhankaaga layidhiyo leexaba ku kalgacaylka leebiyo ila laaqay hootadu anunbu ilooje shudhankaaga layidhiyo leexaba ku anunbaa la liito edi waaye jiifkee